horta waad mahadsantihiin maadaama aad ka soo qayb gasheen sir saxaafadeedkan aan idinka yeeray muddo 6 bilood kadib waxaa dhici doonta doorashadii gobolkan Punjab ee xildhibaanada lagu soo dooran lahaa waad ogtiin doorashada meeshan ka dhacaysa waxaan rabaa inay noqoto doorasho cadaalad ku dhisan laakiin gobolkan Punjab degmooyinka uu ka kooban yahay qaarkood ayaa natiijadii doorashada ka soo bixi lahayd hordhac ahaan la igu sheegay waana degmada Ferasbuur tuulooyinka ay xukunto waxaa ka mid ah tuulada lagu magacaabo Dwalapur waana meesha daroogada oo dhan ay ka soo gashay dalka waxaa lagu tarjumay studio Farmproj dadka qaarkood waxay ku naanaysaan caasimadii daraagiska waxaa laga helaa kookiinta xoroweynta brown sugarta khamri hadhiin nooc walba oo daraagisa waad ka helaysaa dhirta iyo daroogada ayaa badan cirool iyo caruur rag iyo dumar dhalinyarada intaba waxay ka shaqaystaan daraagiska waana meesha keliya oo risqooda kala soo baxaan faanole fari kama qodno intaasoo keliya sheekadu maahan macdin qodis bilaa sharci oo aysan dowladda ogeyn ayaa meesha ka jira waana midda ugu halista badan oo dhaqaalaha ugu badan qaarkood uu ka soo galo haddaba degmadaas iyo tuulooyinka laga maamulo si ay doorasho xalaala uga dhacdo waxaan u xil saaray gaashaanla sare mudane Taarun Shinde oo idinla fadhiya ninkan qaranka waa uu soo shaqeeyay magaalooyin badan oo isaga loo xil saaray doorasho nabada oo xalaala ayaa hore uga dhacday haddana waxaan rabaa middan iyada inaan gacanta u geliyo mudane Shinde waan hubaa hadduu Punjab tago in doorasho xalaala meeshaas ay ka dhacayso waa mahadsantahay maadaama mas'uuliga dhigatay laakiin taliya gobolka Punjab gobolladeena gobolka ugu dhib badan waay gobolkaasna waa gobolka aan ka soo jeedo hawsha ay dirtana waxaan rajaynayaa si wanaagsan inaan uga soo baxo kalsoonida aad igu qabtaan inaan burburi lagama yaabo shaqo wacan ayaan ku dhiiraa mudane Shinde mudanayaal amrooyinba sidaad wad ogtiin waxaan ugu soo foolay doorashada gobolka marka waxaan rabnaa inaan dooranno xildhibaan Bakhtawaarsinga marka waxaa codsanaya doorashada codkiina ugu shaqeeyay malakina lacag keen adne يا أخي ما نقص العقل ما ديوا إسنو هلا ورنو ولي هاي أبونا وقتوغنا ورأنا واحد مكوشة قد رأي سوديبته وحواق قناع سويا أدين العقد كنا كنا مركزنا خصيها بس سواي هلا مدخلة سوقا أنا هذا كوسو هذا يا أي تكينيا أوكي باي أي كوسو تاين يا ديك الوقت تيجا نيكمو نسلو جاميو وسواي caruurey casharkan maanta aan baranayno waxa uu ku saabsan yahay wax xumaana in aan la samaynin wax xumaana haddii aad samaysaan beritoole idinkeedu ku soo laabanaysaan ma fahanteen si fiican waa inaad casharka u qaadataan hay si akhristan soo laabanaya waryaa halkan maxaad ka soo doonta maya walaashay boqolka rubiya labi ma haya waa hasa isino وقتوغا يا أخي لفاتنا ويحنونا يا دابوك سوقد الله وعاف ما ضايك بعد ولا شيء سوى waxa ku sameynay sidoo dhan waan aqaanaa hana isku dayin inaad aniga been ii sheegto lacag kuma siinayo maxaa dhacne lacag miyuu ku weydiistay maxaad u siin weysid inuu xatooyo bilaabo kama baqaysid miya ma siinayo lacagu qashine bakti uu ku soo cabuurabaa mana bixin kara aniga sababtan ciqaabtan u marayn aniga fahmi lahay intaan aniga dhib mar laa inuu asaga dhintaan lii qaatay dhimasho maxaad ugu saadinaysaa dadkii daroogada baray oo sidaan ka dhiga la xisaabtan yaana uga dacwoodaa askartan uga dacwoon lahana looshqaatiyaal ayay noqdeene cid ku maqlaysana ma jirto dulqaada cadaalad way imaanaysaa تلي مركو هرا ماشت كسمينيس هولقل كمو بسطي ماشت مقعد وحلي هذا دوالابور هدي أددني نبسط أي هلس جليسو وحنا جوجان حلوان بكتوار إيرانا وان لو قفوض هلسه adiga miyaaba hadda aniga iwaaninayo wariyaa meeshan hawlgalka adiga ila aadi lahayd miyaad aniga igu soo noqotay hawshan waa inaad qabataa ciidamadana diyaarisaa hadda ayaan baxaynaa waana soo afjaraynaa laba tiim ayaad isu kala qaybinaysaan ciidamada marka aad diyaargaraysidna amarkayga oo keliya ayaad sugaysaan ويا تلي hawlgal wacan أمرك سيلو بحي وأركتنا وانا أركنا ماشي وحو كلا سو كلمو wariyaa dhegaysta baabuurta noo diyaariya hawlgalka ayaan aadi rabnaaye
alaabtii haddaan kugu dhiibaynaniyo caadi iska dhig adigu waxay ahayd soo baxtali ninkaan baa ku baxnaa gaashaan la soo hadal maxaad samaynaysaa adiga aniga waxaan samaynaya wax kale maaha shaqadii la ii idmaday oo keliya ayaan samaynayaa war adiga shaqaad ka hadlaysaa boolambuur amarkayga oo keliya ayaa ka shaqaynaya qofaan aniga amar iga qaadana ma imaan karto ciddii adiga amarkaa qaadanaysa ayaga ayay u taallaa laakiin aniga amarkaaga ma qaadanayo aniga howlgal markii aan samaynayana soo maahan cidda aan amarka ka qaato cid kale maahane waa tuutaha aniga aan xidhanahay tuutaha maa ka hadashay war tuutaha iyo xidigaha garbaha kuu saaranba aniga ayaa laygu shaqeeyaa wakhtigan doonana waan kaa siibi karaa waxaa noo roon anii adiga magaalkan inaan nabad ku wada noolaano meeqaa rabtaa xaggee akoonkeesa kugu soo diraa anigana iga dhegaysa amarkayga ugu dambeeyey wax kale aniga kaama raba dembiyadaad gashay waa inaad qirataa haddii xitaa aad qarisid caddeemo kugu filan oo aniga xabsiga aan kugu geyn karo gacanta ayaan ku hayaa da ayaa tahay xabsigana dani kuguma jirto keliya waxaan kaa rabaa goobtaad isku dhiibi lahayd oo aniga kugu imaan lahaa isdhiibid ayaa ka hadashay war duurkan libaax ayaa boqorka ah anigana ina isdhiibi lagama yaabo nasiibkaa ku wacnaado war iga qaba taleefanka diyaar ma tihiin maxaa la taagantihiin wakhtiga howlgalka ayaa bilow mudan ciidan ayaa afartan dhinac naga soo weeraray doonayo howlgalkan inuu fashil noqdo waxaan rabaa dhammaan dadka mukhaadaraadka meeshan ku sameeya inaad gacanta ku dhigtaan waa meel daroogo ay daashatay gacanta ku dhiga qaqabta halna yuusan idinka fakanin waxaan idinkala hadlayaa duulabaati soomahan taliska ciidanka booliska isbatoora joogaa siin ayaa idinla hadlaya xaaladeenna way xun tahay ciidamo ayaan u baahannahay sida ugu dhaqsaa badan duulabaati village ayaan ku sugannahay soo dhaqsada idinka maxaa idinku dhacay shit يا لستالين ولا رانا واكوي ninka kula soo hadla waa xildhibaan adigana hadalkiisa waa aad yaraysatay xitaa waxaa lagaa raba wax yar inaad xushmayso aniga hadda imtixaan yar aan kaa qaadaa adigana howlgal ayaa soo aadamay kaftan ayay kaa ahayd askari imtixaanka isku diyaari aan kuu sheegay
ugu horreeyey oo aan kaa qaado waa ku guuldaraysatay da'da maa kaa daba timid ma aqaan waxaan samaynayaa inay qaladiina in kale ma kala aqaan aniga laakiin waxaan rabaa inaan adigana siino kuu tiro askari walba oo ka tirsan ciidamada booliska ee dalkeenna indiya hawsha marka loo diro dadku waxay aaminsan yihiin askarigaasi inuu daacad yahay hawshiisana uu gudanayo isagoo daacada markii uu shaqada soo galo dadku waxay leeyihiin dhimasho ayaa diyaar u tahay tusaale ahaan shaashadda waxaa idinka muuqda isbatoora joogaasiin oo aad aragtaan meydkiisii in hadda la sii wado joogaasiin iyo ciidamadiisu howlgal ayay waxay ka sameeyeen dulaapuur halkaasna waxay ku soo qabteen daraagis aad u fara badan raggii tuulada ku sugnaayay isaga ayaa isku dhacay maantana waad aragtaan meydkiisa ayaa la sii wadaa taariikhda haddii dulaabaar aan wax yar idinka xusto magaaladaas dad badan oo ka tirsan ciidamada booliska ayaa dhiiggooda lagu daadiyey dadka deegaanka markaan waraystana waxay ii sheegeen hawshaas oo dhan waxaa ka dambeeya xildhibaan baktuwaar isaga ayaana tuugada maamula mudana bilah adi see u aragtaa arrintan yaa see u aragtaa xitaa yaa kaloo ka dambeyn kara xildhibaan baktuwaar iyo wiilkiisa raana oo keliya ka dambe tuuladan ayagaa qasaya ku dhaa dadkoo dhan dhifaqay ka dhigay askari yimaadana ayagaa hor siibaya aniga waxaa jeclaysa lahay dowladda sida ugu degdegta badan inay dadkan tilaabo ka qaadaan ku yidhi kuwan inaan ku xijiyo waayo haddii kale ma aamusayaan aabo aadaad u qurux badan taabay afka inaad ka xiraato ma wanaagsanid waa inaan kaa furaa maxaa yeele gabar aad iyo aad u qurux badan ayaa tahay maya maya tartiib isdib wax ma kugu samaynayo haddii adiga aamus weyso madaxa ayaan kaa jebinaya adigoo sidaan u qurux badan ayaa rabtaa warbixinaad diyaariso maxaad u samaysay sidaas laakiin maanta quruxdaada ayaa ku badbaadinaysa haddi kadibna aniga ayaad ila joogaysaa aniga ayaad ila noolaanaysaa mar kastana dhankayga ayaad ahaanaysaa ma ka heshana ma ka helina umalaynaa ciyaarta watee bobsi waa kaa hele ku jirtaa haye soodal lama beri ilaa 3 beri waa ka badan yahay walaashay waa waasanahay waryaa walaasha rid dhunta miya oo la raadinaya waryaa idinka kale maxaad ku hadlaysaan gabar ayaa maqan ayaa liindiri inaad wax u qabataan ayaa loo baahan yahay sidee waxay ka yihiin war aniga dhagool maahay wax walba waan maqlayaa wax walbana waan ogahay teeda kalete walaasha saaxiibkeed ayaa raacda ayadana imaanaysa mar dhow walwalka iska daa khayru mas-uulimada intaan leeg waryaa maxay tahayna waa inaad dacwaddeedna qortaa haddii kale beri tviyadoo dhan adiga ayaa lagaa daawanaya laadhuub ay ciyaaraysaa soo maahan وايه نكان راح أساق إنك سوق رأي دعوده لا ندوق أنا إيجا قصين عيار كتير gaashaan leh aniga waxaan u baahanahay askari i fahmaayo oo hawsha ila wadi karo waxaan doonayana ii qabanaayo ya okay sidaasaan oo ballan waaye adeerka ii duceeyey waa ducaysan tahay wiilkeyga walaalka sidee tahay adigana waa ku salaamsan haye maxaad ugu yeertay adeer maanta waad labisan tahay xalfad maa lagaa wacay ii sheeg balaa ka qaybgeli rabtaa xafladda intay taallaa arrimahoo dhan way isku cakiran yihiin sidee wax u jiraan adeer adigaba waad og tahay xisbigii oo naga soo horjeeday ayaa nagu kacsan xaaladdana way nagu xun tahay wax walba way qasan yihiin wax noo toosanna ma laha qof hawshaan kuu xalliya haddii aan kuu keeno ka waran mid aan saaxiibbana ayaa jiro yuuya dhowr bilood ka hor ma xasuustaan lacagtii moohaali lagu dhici jiray ee 20 milyan ahayd lacagta kaashkeeda haa kiiskaas waxaa xaliyey sargaalkaasna wuxuu ahaa aniga saaxiibkayga qaaliga ah waaba hilmaameen magaciisa iga dabageeba saaxib dave dsb dave
annaga geesi kuuma dirin geesinimo annagaa iskaga filan ee waxaan rabnaa qof lacag darteeda hawshaan u geli kara wax walbana qaban kara adeer si fiican ii dhegayso kaba soo qaad ninka aad raadinaysa adigoo gacanta ku dhigay ninka aniga ku hayo lacag darteed deb xataa waa u dulmaraa ha ka cabsanin teeda kale ninkaas naftiisa iyo lacagta ayuu jecel yahay mudanayaal iyo marwooyin caawa ciyaar aad u adag ayaa goobtan ka dhacaysa ciyaartu waxay u dhaxaysaa laba dagaalyahan oo halistooda leh dagaalyahanka koowaad waa Rocky oo Mumbai ka yimid iyo Dave oo ka yimid Mohali Titanis Club inkastoo ninka lagu magacaabo Rocky feeryahanna badani ay diideen inay la dagaalamaan ugu dambeyn waxaa ogolaaday Dave noloshiisa halis ayuu geliyey waxaa la sababta keentay inuu ogolaado inuu la feertamo ninka lagu magacaabo walaa Rocky ninka leeyahay waa nin khatar ah halistiisa ayuu leeyahay adigana nafsadaada halis ay gelin feeryahanada kale tan way ka cabsadeen lacagtiisa oo gaab waa 100,000 بوليس هيمد سعرف بوليس كوي صورته هي qabta dhamaantood kaala adiga dabana adigina albaabka dambe ka bax inta maan soco اسمه طارق عدنيه كا بحسن وحيرك هذا هلو هلو dhalasho wacan mahadsanid laakiin adiga maxaa kugu dhacay maalmahan ma aadan soo wicin waxa loo baahnaa inaad soo wacdo oo dila soo xiriirto waa aniga hadda ku soo wacay waad saxan tahay mahadsanid xabiibteeda markii xanaaqdo aad bay u qurux badnaanaysaa waxay iga haysaa taleefanka in aan ugu dhex baxo xabiibi is control teknolojiyada maanta la taagaya lama gaarin heer telefoonka la isaga soo dhaxay jecelahayo wax walba ka suurtoodo farsamadaasna anigaa goordhow keenaya mideeda kale maadaama dhalashadaada ay tahay soo wanaagsan xaflad inaad dhigato waa asxaabtaadan aad ugu yeerto xabiibi xafladda soo qarash fara badan kuma baxaayo ka waran labadiina leh haddii aan isku imaano oo aan wada sheekaysano si uusanba qarash nooga bixin kaba sii fiican labadiina haddii asheelno intaasaaba naga badan اوكي حبيبي هدرتان waxaan kaaga baahanaa xaafadda si toos inaad dawaanka oqaana kalaba ku leexaya kalaab waqti lumisaa loo adaa marka kalaab aniga waxaan u aadaa meesha ma yaalaan in adigaan ku haystaa taas naga daay aabo goormaad la kulmaysaa ii sheeg bal aniga waxaan rabaa aabo inaad la kulantay waan la kulmaa laakiin degdeg muxuu yahay sababtaan u degdegay wax kalma waxaan ka baqayaa adiga inaad qiyaanto saas darteed ayaan kuu leeyahay aabo la kulan aan ku soo baro may qiyaan ma jiri doonto aab la kulankiisan waqti ay u baahan tahay marka fursadaas isiino naga daayaqay هدرتان بحيا باي اوكي باي باي saaxiibo waxaan u malaynaa qofta inay kugu adkaysay adigana waxaad rabtay kalaab inaad geysaa waqti ku wada qaadataan waa runtaa qoftaas korneel ayaa dhalay sharci ayay ka dambaysaa waa runtaa saaxiib haye dhalinyaro maxaad meesha ka samaynaysaa ii sheega waraa yariiso meesha maxaad ka samaynaysaa ii sheeg bal hay adigan kula hadlaa haye tali meesha isaga tagaa soco dhaqaaji waya tali go
saaxiibo waa kuu kala kacsantaya isalaana lagu saaraa labisigiray baabuur sidoo kale innaba caadi ma tiid waa kugu farxaya saaxiibo waxaas waa iska caadi noloshaana sidaan ku dhisanbo adigana waa heli kartaa waa inaa ciidan ku soo biirtaa sideen ugu soo biiraa saaxiibo 3 maraan imtixaan galay imtixaankan waa aan ku baasay laakiin maxaa iga raacmad saqanahay niyadda in layga dil laakiin adigoo qaabkan ay sidee ciidanimad ku heshay wareysiga meesha yaalo waa iska beenguur adiga dhab ma kaa tahay anigaa garab ku siinaya ku caawinaya saaxiibkaa haddii aad rabto 1 milyan oo keliya ayaa kaa xigto 1 milyan la dhiibo marab soo he aabbe waad taqaanaa adiga 10 rubiyan silic kaga qaada haddii aniga aan dhaho 1 milyan aan u baahanahay oo ciidanimada aan ku galo muxuu iigu jawaabi karaa aabbahe waa daacad wuxuun rabaa sidiisoo kale in aan noqdo waad saxan tahay saaxiib waxbaa ka walwalin nakeen meelahaasaa raashinka sii raadsinaa oolayaashadan namarihe hay saaxiibka baba hay bay deef aabbo iswax wanaagsan oo wacan saakay waad soo dheelmatay siday wax u jiraan xilligan aniga kuguma ogeynay maxaa daran maya xoogaa waa aalmiidsaynay leh beelo waay laakiin adoo aalmiintana weliga kuma arkin may saaka aalmiinta ka shidnay 10 sac subaxnimaa kacay adigana xilligaas waa jiiftay laakiin dharkan maa la labistaa haddii oo almiinta la aadayo waxaa loo baahan yahay almiintada dhar kale in la gashto hadda aniga adaa tartamayno nakeen move gaashaan waa ku salaam waa kaa qaaday hal mid aan ku weydiiye ma xasuustaa gabadhii guurkeeda lacagta loo aruurinaya lacagtaas sii jooga lemo waxaan kugu dhiibay xaaskeyga iyadaad ka qaadanaysaa subax wanaagsan hooyo macaan subax lamida wiilkayga saaka aroor horaa soo kacday maxaa dhacay balan miyaad leedahayna haa hooy balan ayaan leeyahay waaw wiilkayga markaa wuu weynaaday xitaa balan ayuu leeyahay cajaa'ib waan ku faraxsanaa soo bax waa quraacanaysaa hooyo quraac iga daaya waxaan u baahanahay lacag 10 kun gaarayso waan ku siinaa laakiin marka hore waa inaad quraacataa wiilkayga 10 kun sida loo dalbado way fududahay laakiin waxaa ogaataa sida loo shaqeeya in ay adag tahay yaa qays ka dhaaf 10 iyo ka badan asigaa kuu soo shaqaynaya waa wiilkaagii waxaan la yaabanahay ballantan uu sheegayo meesha ay ka timid qabso lacagtan lacagta waxay ku fiican tahay marka la isticmaalaya inaad adiga shaqaysatid aaba maxaan ugu horeyn waxaan kaaga mahadcelinaa lacagtaad isiisa laakiin shaqada uu ka hadlayo ma aana fahmin ilaa hadda wiilkan wax ka soo socdo wanaag ma ahan mana aqaan aniga meesha u socdo maya aabba hataa wiilkaaga sidaas dhihin meel ayuu u socdaa ee quraacdii kaa qabowna dhaqsocon xanaaqa saa'idka iska yareeya caadi iska dhig ya maya xanaaq ma jiro caadiyaan ahay jawigaygana waa degan yahay waayahay shaah cab shaah isuga aabbu wuu imaaday wiilkaygii adeer tartiib iska fariis anaa ku imaanay meeshiina jooga soo dhawo hay waa dhawa fariis hadda wiilkii mayma adiga fariis marka hore hay diyaar waa fariisanaya mahadsan tahay fariis adigana okay adigaa mudan wiilkayga arrimahaago dhan waxaa iiga sheekaysay aniga gabadhayda kirad waana ii sheegtay inaad nin wanaagsan tahay adiga soo aabbaha maahan gaashaanla sare baldeef sidaasaa ila tahay ninkaas nin daacada ayuu ahaa dalkana wax badan ayuu u qabta hadda adiga maxaad qabataa wiilkayga bal ii sheeg oo aad rabtaa inaad qabato mustaqbalka waxaa rabaa boolis inaan noqdo
micniga ciidamada inaan ka oo waa arrin wanaagsan aniga markii hore xitaa waan jeclaa gabadheeda kiirad inay guursato nin sargaala oo ciidamada booliska ka tirsan haddase haddii adiga laftaada ciidamada aad ku biiraysa wax farqi oo ay samaynaysa male gaashaanla waad iska noqon doontaa haddii aad dadaasho waana jeclaha sidaas oo ay tahay arrimaha bulshada ayay ka shaqeeyaan shacabkana waxbay u qabtaan anigana waxaan jeclaystay shacabka inaan u adeego sidaasaan boolisnimada ku doortay dareeskaas makii hore aad u xiro jirtay excuse me iga raali noqda halo haa khadka ku jira wax yar sheekada ii wad isugban dhegeys aabbaha hitler waa maxay su-aal ku weydiina dhaqsi inaad ugu jawaabtid ayuu rabaa runaantii aabbaha ninaad adag waay igaamas waryaan waa ku ammaani laha aabbaha aniga ma aflagaadeen hadalkayga haddaba si fiican u dhegayso wax walbo aabbahay u baahan yahay waxaad ku qasbantahay inaad samayso ha ka walwalin boolis inaan noqdo ayuu rabaa sooma adiga aniyo degdega naga daya magacaaga noo sheeg deebshingi waa mahadsantaas aan ku xiga diif kaale adoo iska bixi kartaa yaa orod dhaqaaji warqaddan qabo meeshas waa inaad tagtaa hawshan waa inaad qabataa waxaan kaa rabaa wixii kaa qaldooma aniga inaad la soo socodsiist anigaa garab ku siinaya waad fahantay soo maa cunugan uma eka cunug tababarka booliska u diyaarsan imtixaanka la maraayana waa imtixaan adag adiga sidaasa dhihin wiilkay waa ku kalsoona imtixaankaasna wuu ka gudbaa wuxuuda markii la siiya kadib le waxuu la soo mahagaagayaan maxaa la siinayaa ii sheeg anigaa kuu sheegaya lacag 80,000 ayay u baahan yihiin in la siiyo waa ku fahmay oo hadda si aad askari u noqotay laaluush ayaad ku bixi rabtaa soo maa haa aniga ra'yigayga inaad boostaala noqoto ayaa ii dhaanto intii aad laaluush ku bixin lahayd si aad u noqoto gaashaanle mana doonaya aniga hawshaas inaad gasho bataatan aabba macaan aniga tababarka ciidanimo waa aan maray imtixaankan sidoo kale xilligaan la taagan waxaa wanaagsaneed in lii ogolaado balse waxaa liigu xujeeyey laaluushka ciiska liiguma xujeynin ee waxaa iigu xujeeyey ciidanka adiga aad la shaqayso hooy macan aabba maad la hadashid aabba runaantii adiga magac waad leedahay laakiin magacaaga ilaa hadda waxba ima uusan tarin ciidanka aad la shaqaysid laaluush ay u baahan yihiin deef ma ilowda inuu wiil keenayaa maxaad lacagta u sii weysay lacagta asaga waxaan kuma samaynaya shaqale ku samaysanaa ma ogido maad siisid yaa u shaqaysaa oo kale hadda aniga lacag laaluush lagu bixiyo inaan dhiiba lagama yaabo war hadda haddii lacagtaas siiyo lacagta shacabka ayuu ka soo celinayaa wuxuuna noqonayaa laaluush qaate anina middaas ayaan ka soo horjeeda ma la socotaa hadda haddii uu laaluush dhiibo inuu noqonayo nin laaluush qaato war aniga wiilkayga haddii uu barto laaluush waxaad ogaataa damiirkiisa iyo dadnimadiisa inay dhimanayso anigana middaas ma doonaayo waxaan rabaa wiilkayga inuu noqdo nin kartel oo shaqaysanayo daacadde warkayga ma fahanta diif kac walaal soo bax baraam maxaa dhacayna
adeeraa shir galayna keen maxaa ku dhacayn aabbaha gaariyaa jugsiye gaarigana wuu ka cararay kadibna wuxuu isku dayay aabbaha inuu ka daba cararo waana suurtageli weyse annagana waa baxnay meesha asigoo dhaawacaan ku aragnay kadibna waan soo qaadnay isbitaalkaana keennay aabo hooyo aabbee maxaa ku dhacay aabbo macaan aabe la hadal aabo aabo macaan aabo aabinaa kala far aabo ilaa aabo hooyo aabuu naga fogaaday aabo aabinaa kala far aabna dhammaan dab kulmis halkan waxaan u taagannahay tacsiyada sardaar barbaar siin wuxuu ahaa nin geesi ah misna howlkar ah shaqadiisa iyo noloshiisa shaqadiisa ayuu jeclaa taasna waxaa kuu caddayn karta wiilkiisa wuxuu ku daray ciidanka si uu u guto waajibkiisa sidaas ay tahay waxaan garannay wiilkiisa inaan u magacaawno taliyaha saldhigga booliska hawshaasna uu ka soo baxo sida aabbihiisoo kale weli adiga maskaxda maa kala ballabaysantaa nin aabbihiis gaashaanlaha ay artaa inaan naga nagu soo biiriso hadhuuta muxuu nagu samayn karaa ii sheeg haddii dhibaato u noo geysta ka warran war idinka maxaa sheegaysaa maya xilli baan annaga xoogaa sheekayr iska wadanay askariga saacadda wiilkiisa ayaan iska wareysanayn waxuu samayn karo waa kaa saxan yahay wiilkeyga sidaad u malaynaysaan ma aha ninkaas anigoo saaxiibkeeya lacag darteedne wax walba uu samayn karaa hawsha la dirna waa qabanaa dhiigga daacadda ee aabbihiis adiga maa ka miirana waa idin fahmay weli idinka ninkaasaa shaki ka qabtiin ma ogtiin ciidamada booliska ugu soo biiraya qaabka ugu soo biiray sideena ugu horreyn laaluush ayuu ugu soo biiray ciidamada booliska ninkaas musuq maasuq aabbihiisna waa asiga haddana waxaa loo soo beddelay gobolkan aan ku sugannahay aniga asigana sidaasaa isku barana haddana waa idiin keenay waad arkaysa sooma qaabka lii salaamay waa u jeeda sida lagu salaamay barmadsiin adigana waa inaad is salaantaa maxaa sugaya qosolka iska daya salaan isaar
barmadsiin waa taqaanaa shuruucda ciidanka u degan waana islaanii saartaa isaag taliye saaxib waa cabsatay soo maaha may ma cabsanaa jelinkaaga zaa'id eeno deef ugu dambeyn riyadaada waa ay kuu rumowday maantana waxaad noqotay taliye ciidan qof ma jiro dariiskana kaaga qurux badan bal fiiraad garbaada wax ku safan milyan 2 milyan 3 milyan 4 milyan 5 milyan 6 milyan xidig walbo milyan waa inaad burcadsa kaga qaadataa waa haddii ay diyaar leeyihiin haddii kale yuu ku fikirin garab inaasi ogkaadiba laakiin waxaa isweydiimo lacagtaas markii lagu siiyo sidee u tiri doonta haa waxaa iskadaani mashiina lakeen jeebka lay ku qaadano markay ku siiyaan kadib mashiinka lay ku tiri op gaclisada walwalka iska daa adiga labadeena inaan isguursano cidnaga hor istaagi karta habeeraatee ma jirto ilaan 3 xidiglaan ahay runtaa miya haa waan kaa hubaa buuqa agtaada ka yaraya muxuu yahay yaa may askarta xoogaa aalmiinta samaynayso gaclisadeeda taleefonka aan kugu soo celiyano okay love you maxaa iga sugaysan miidsuulemo يا كلام هو بالعدو كان جوجيب ما اقرا حسام مساكين orda caano kulul u keen ha cabaanay shaqooyinkan yareer adaysan maxay dad waaweynatiin suuga biir idinma raba aniga waxaa rabaa burcad inaad noqotiin qaabkaasna soo maa anigaa idin sheegaayo oo weliba garab idinku siinayo beri wasiirka ayaa imaanaya booliskana meeshaas ayay ku mashquulsan yihiin bangiga bunjaab lacagta taalasho saacibar saacadda markay tahay bitsaaliya loo qaadi rabaa بنكك بنجاب يا لدعي سيدي لو دعي شي مال عندي قرت وحده جري بابا يا xilliga la dhacay inta jirtay lacag fara badan ayaa loo saday tali booliska tuuga ama is ogayn maya annaga hadda ka hor dhici mayno baaritaan ayaan wadnaa baaritaankaas kadib ayaan wax walba idin sheeganaa sidee wax ku dhaceen deef waxaan dhacay ayaan rabaa inaan ogaado muhaali markaad imaanaysa waxaan islaa hawl wanaagsan ayuu qabanaya wasiirkoo jooga ayaa fadeexadda noocaana nagu dhacday mana aanan kaa filin waxyaaba noocan oo kale inaad nagu samaynayso saxaafadii oo dhan annaga ayaa naga shakisan tahay mana kaa filin ceebtan inaad noo keenayso tali 24 saac fursad sii jawaab degdeg inaan ku keenaa igu balana waxa igu balan haddii aad soo xalisid anigana in aan ku dilacsiiyo garaadahagana garaada kale kuugu daro tali waad bixi kartaa
shirkeen aawo ma nasiisid sheer maba istaaheshaan nin weynaan ahay wax weyn inaan qaadsa ayaana jeclahay u kaadi haddii ay sidaas tahay shirkiina sidaan kaaga qaadan lahayn annaga ayaa naqaano mana la baraayo maalmahan dhanba saxaafaddu waxay buurbuuninaysa booliska ayaa arrintii ku lug lahaa laakiin annaga ugu dambeyn waa aan soo qabannay raggii waxaasoo dhan ka dambeeyey hantidii ay qaateen ayadoo kun shilin aysan ka isticmaalin ayaa gacanta lagu soo dhigay waxaana suurtageliyey deef shargiil sargaalkan lagu magacaabo run ahaantii waxaan dhihi karaa askarta kalena sidiisoo kale waa inay noqdaan aad baan ugu faraxsanahay weliba 24 saac gudahood ayuu ku soo qabtay aad baan kuugu faraxsanahay wiilkaygii shaqo wanaagsanna qaranka waad u qabatay hadda kadibna sidaa shaqada u wad xildhibaana maxaa kugu dhacday qosol kale yarayso ma waxaa rabtaa doorashada intaada gelin ka hor inaad qosol dhimatay ninkan aniga run ahaantii waan ka helay waana nooca aan rabo inuu ila shaqeeyo taliyaha booliskana waa inaan wacaa maxaa waay sidaan degmo xunoo xuduudda ku taala la ii bedeleen degmadaas saaxiibkii dahabka ayaa laga qodaa lacagta aad ka helaysidne hindiga kuma filno ee banki switzerland in lagaaga furo oo keliya le waayo waa difaacda soo maaha lahuwa anigaa kaa huwa ha ka welwelin oo hadda bangiga swiss account ma kasii furtaa dabcan waad ka furan kartaa saaxiibkii hagaag markaad baxda armaad hilmaamtaa nagadaahay adigani gaclisada seen ku ilaba soo lama socod inaad tahay nolosheeda barkeeda jasiiradan u socda waantaa kadib waan ka soo laabanaa fanaanadan iigu daray ha iga loobine maya maya kuuma xareynayo xasuus ahaan ayaan kaaga reebanaya markii aan kuu xiiso laabtaan gashanaya harmacaanteedii adigani waxay kula tahay shaqadan aan u socdo inaan ku qanacsanahay waxay bigahaysaa inaan adiga kula baxsado saasaa wanaagsan be deef ha yaawe hoy hoy macan hay ma socnaa wiilkayga aniga soo maaha gurigan kama tegaayo
markasta aabbaha hadalladiisa ayaa igu soo laabanaya haddii aan meeshaan ka tagna inaan dhinto ayaan buu malaynaya xasuus ahaanaan u jooga wiilkayga marka hore adiga iska sii bax anigana waan kaa daba imaanaa waan kuu duceeyey wiilkayga waaya hooy macan sidaa jecesha ayaan kuu samaynayaa haddana waan sii baxay wiilkayga farxadaan kuu rajeynaa hooy macan adigana iska taxadir macdayda awe hooy iyo ilaaliyaa adigana naftaada iyo ilaali باي باي وانكو سلام تلي سودو waxaan ahay aman waxaan u xil saaranahay hawsha meeshan laga qabto idil macnaa fahmay alaabta gaariga saaran haliis way horiya alaab soo deji tali hor u soo gudub soo dhawo adi hadii aad imaado way fiican tahay taliya ka hore tali reer magaala ma ahan laaluushka waa u diidanaa laakiin adiga sida noqon doonto bishii kara aniga ee soo dhawo marka hore waan huba hawshan si fiican in uu qabanayso taliya askari aniga maxay iga taqaanay ii sheeg bal macnayga dokumentiga ka soo horeeyay wax walbana dokumentiga ayaa ka akhristay hawshan ina ka soo bixaysid oo huba taliya wanaagsanna waa tahay si camal taliya ma kulad waxaad rabtid inaad iga sheekeynaysid iga raal naqtaliya mudane 5 sano ka hor ayaan ninkaas mootada ka iibiyay aniga arrinkuna waa sidaas magaciis ma ugu qortay maxaan magaciis ugu qoraa marka horeba ID card ma haysan saas darteed aan magac ugu qori waayay aniga hadduusan magac ugu qorneen waa waajib in magaciisa lagu qoraa waa ka qaadi mudane walaashii ma la heli weli ma la helin laakiin adiga wax baa ka cabsanan isbatoor daacda imaaday usaa raadiyahan ku dhahay meesha ku jirtana usaa ka soo saara waa ku soo laabanay walaashaa hanlabo adiga waxba ka cabsan goordhow jawaab fiican waad helaysaa aniga barab daroogada inaan ka cirbid sir labada tuulo lagu magacaabo Forsambuur iyo Holinga guul ayaan ku rajeynayaa wiilkayga soo dhawo mahadsanid wiilkayga waa ka sii tagay digtoonaada dhammaantiin ugu horeen waa idin salaamay khaasatan adiga warbixin degdeg ayaana soo gaartay warbixintaasna wax kale maaha waxaa la sheegay tuulada noo dhow gaari daroog saaranta inuu ka soo dhaqo oon u soo socdo tuuladan anaga aan joogno marka gaarigaas waxaa rabaa gacanta in aan ku dhigno uusan marnaba naga badbaadin marka waa inaad isdiyaarsan diyaar waad u tihiin sooma howlgalka هجاك ألا جوجي باور كاسيا ألا جوجي باور جوجي شوري جوجي لا تشوتشني أحيدي صدق يا حيدي صدق دي صدق وريا صدق لحظة كصدق قاري صدق صدق عنيو صدق أكني موري باركن تلي قاريغا wax ma saarna carar leh wada fiiri ani ma ku weydiiyay leesanka ku yar inaan ku weydiiyo laakiin waxa ii soo baxday naftirka check up inaad u baahan tahay soo bax saco yar qabo hawa kana tali madax diiqay إلين وحيوانات إيه قرنيس مركز كوسو بودس قارق وحو مسارنو بلت آوي هاف كان علي حريم حسوقيسان وضا صليقة لكي سعوريا مدح ديق واحد سعودي قبل كان إيقو هاللي تلي حراني داينك سعوريا قروي تالحون جبير سعو بضيعنا لكينا كسو قيلي كرتان انت كانوا كيمال هذا هالبخار لجراية دول برمو
array adigana ma hay fadhi weyn inay iga shaqeyso dhalooyinkeena dhaqdi waxa ka buuxin kara bishan wixii cun lahaa la rabaa shaqee daro ma shaqeysaa xad ka bedeli kartaa haye weligaa shaqo ma jiraan ku shaqo jiray iska fadhi ma waxtara waryaada cabsida iska daaya waan arkaa banaankan qashin inaad ku samaynaysaan ya may maamada waxba akharin wax walbaan arkaa aniga maxaa kugu dhacay haddaad aragtay waxaad naga qaadi kartaa wax badanaa dhici karo ulaha maxaa u wadataan haddaan fahmay wax yar baan amalayna annaga inay nugu garaacaan dadka inaan deegaanka degan isdejiya keliya annaga waxaan rabnaa qashinka meeshaanad ku samaynaysaan inaan hubino isbal ladan ugu horeysaan fiiriye labalabaan ku leh qashin oo dhanaa iskugu keenteen waxaad iska reebteen habayraatee ma jirto labadaas maadra dumo kasta waa amaan kartaa waa lagu soo dhaweeyaha laakiin waxaan ugu weydiiyaa baabuurka noo soo socday jidka xaad ugu celisay ii sheeg labalabada adiga ka bariis raadsakoodhe midda kale baabuurka inuu idin soo socdo waxaa wanaagsaneed inaad ii sheegtaan laakiin mudahina looga baahnaa inuu kuu sheego inuu soo socdo baabuurka usugaa looga baahnaa mudaniin yaa waay walaal raana ayaa iska leh waxaan rabaa inaan la kulmo adigana maxaad sugaysaa hawshaada wado alaab diyaarsanaan kaa rabaa inaad ii samaysaya maxaa wataa degnaashadan qof walba shaqadiisa ha gudagalo dhaqsada ordaa qashinkiina kariya askariga ayaa yimid adiga ayaan ku sugaynay soo dhowow gaashaanle soo dhowow waxaa soo gaartay gawaarideydii mid ka mid in gacanta lagu dhigay shaqo wanaagsan ayaad qabatay hadiyadda loogu talagalay isbitooraa keen si ugu dhaqsiyaa badan waa soo qaadi caawa asxaabtayda qaaska ayaan rabaa inaan xaflad u dhigo adigana qofka ugu horreeya aad ka tahay waa inaad timaadaa maashaal wanaagsan ayaa meeshaas ka dhacayo haddee tali hoo sheexaan qabshabe hay saaxib riyada xal ku riyoto kaburbuto waa maxay dhaqe murug 8 mantag 9 ma shaqotoman laakiin waxaan ka yaabanahay isbatooraha raanaha badeecadiis ayuu gacanta ku dhigay kadibna labadeena oo isla socono ayaanba waxaan tagnay guriga raanaha meeshuu ka canaanan lahaa asagaa baa diila siiyey waa ka yaabanahay arrintan siday u socotaysay u jirtaba dabaalu adiga wax fahmi ma kartid baabuurka la qabtay wuxuu ahay baabuur feege laakiin baabuurka saxda ah meeshoo raba waa uu jiryaa adigaa lagu been guuray beel cidlaha ayaana ku dhegan tahay ee dadkan waa dad isfahansan teeda kale mid aan kuu sheegay jagboontiga baabuurka lagu qabtay wuxuu ahay baabuur feels ah kuwa kale mar hore ayay gudbeen meeshay rabeenna waa ay tegeen adigana waxaa lagaga baahan yahay daacadnimada inaad iska dhaaftid oo aad qaraabatid dadkan al shaqaysatid kadibna oo laalaa ku qaad dowlad markii lacag lagu siiyo nafsadaadana u raaxay okay noloshaan bariis buubuurka la cunayna ka soo bax tan basmatiga iyo doorada soo gal waxaan dhan sheego sidaan ku dhahay horyaan u soo maray adi tuuladaa markii soo galaysi aan jagboontigaan taagnay daroogada aan gudbihayaan ku dhahay adi horta kow
xeebta lee hadda joogtaa badweynta imaa badweynta markii imaadid adaa wax arkay xeebta ka soo leexo gabacd dawaalaa baranay dhib ma laha nin reer magaala ah waa baranaa laakiin adiga sheexan iska cab daacadnimo leh ha kugu boqboqdo adiga noloshaan isaga jir taliyaan ha ku qabto heesta salmaa joodari ha kugu dheelsiiyo kan hanuun ewer badbaadi askari maxaad ii fiirsanaysaa maadi badbaadisid waan ku baryaa walaalo ninkayga badbaadi waan ku baryaa badbaadi waxaan maxaad u samaysana aniga artaa miyaa inaad iga cararto inaad samayso waa laga wanaagsanay waxaan tilaabo qaldan ayaa qaadaysaa qof yahay waxaad u malaysaa miyaa askarigaas aniga inuu ii kaa badbaadi karo aniga ayuu ii shaqeeyaa askarigaas cid kalena igama kaa badbaadi karto qolkan ayaad ku jiraysaa cimrigaaga inta ka dhimanna ma laga yaaba inaad ka baxsato hal midna xusuusnow quruxdan aad leedahay ma laga yaaba qolkan inay ka baxdo raanaa gacantiisa oo keliya ayay ku jiraysaa cidaan raana ahayn oo nolosha aad la wadaagaysa haba yaraatee ma jirto haddana waan kuu soo laabanaa isdiyaari dhaqsada maxaa sugaysaan si wanaagsan u ciyaara dhaqsada ciyaarta gacmaha rabaa gacmaha waxay tusa waryaa adiga caloolkuus aalmiintada waa inaad badisaaya sidoo miisaankaaga dhaco joojiyebal ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੁਟਿਆਰੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਕਰਾ ਦੂੰ ਗਲ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕਰਾ ਦੂੰ ਕੋ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਪੁਲਸੀਆ ਲੋਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਪੁਲਸੀਆ ਲੋਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਪੁਲਸੀਆ waryaa adiga ciyaarta iga saa ciyaarta tali intaan ka badanaan ku dhaho uma dul qaadan kara aniga caloosha hadday xanuunto aalmiitada waa iga badatay 6 baaga iga soo bixi ratay iyo 8 caloosha noocan oo kale haddii aad deysato ugu dambayn adiga ayay ku dilaysaa askarta reer banjaab ayaa inta feel gelisaad rabtaa hees inaad u shidood aalmiita ku siiso muusigiisiyaab naga maqlay kaalibal adiga muusig noo garaa tali isbatoore baraanfiir sir warbixintiisa dhegayso haye taagnaashada maxaa waaye wada ciyaarta dhaqsada bilaaba aalmiintada halayga dhiso dhaqsada beddelka meeshaa lagu soo beddelay adeeraa ka dambeeyey wuxuuna kaa rabaa doorashada inaad garab ku siiso horta run ahaantii sanadkan doorashada aad ayay u adag tahay wasiir in la noqdo iska daaya xildhibaannimadii ayaaba cariiri ku jirtoonba la heli karin qolada iga soo horjeedana lacag fara badan ayaa lagu qarash garaynaya lacagtaasna waxay ka soo baxaysaa daroogada magaaladan la keena qaabkaad adiga u istaaji lahayd adiga ayaa yaqaano gaashaalna aniga kuuma sheegaayo hawshaada waa inaad qabataa walwalka iska daa adiga
cayayaanka yaryar ayaan ka bilaabanaa kadib kan weyn asigaaba lugihiis ku imaanayo gacantaana ku dhigaynaa hal midoo dardaaranna ha iloobin kii mayaaq kuu keeno waa inaad u dhammaysaa anaa kuu joogo beelo bagsawaar ha dhaco bagsawaar ha dhaco waan ka helay wejiga dhabta ee bagsawaar inaba caadi maaya haye kabtan waxaad leedahay bagsawaar ha soo laabto baktuwaar ha soo laalaan may isku day mar labaad bagsawaar ha soo laabto baktuwaar ha soo laabto hanuun ma u sheegin kan ma fadhiya saldhigaa si fiican ugu sheegaysa aawe kulligood saldhigaa laii geeyey wada wada madaxdu waaba adiga sooma dhulal aad u fara badan gacantas waad ku dhigtay dukumiintis fara badanoo been waa aad samaysatay kaal adiga ma xishoonaysmiya adigana muuqalas turufatoor ayaa taa sooma oo dadka ayaad dibadda u dhoofisaa kadibna waad ku shaqaysataa hadda kadib wax walba ila soo socodsiiyaa wayaa taliye xariifkana ii soo haray wuxuu dhahay filmaan musaaric ayaan samaynayaa war heedhe filmaanta adiga aad samays waxaad ku sheegtay sheeko wanaagsan inay lahaayeen goormay la sii daynaa noo sheeg bal amada taliye weli mana daynin filimaanta hindiyaa noolaad ها واك سلام مادام شمع نحريس كو قلا إسو فيري سانتا لماهن إيجا سو غاران كو داي إبران كو أي ma soo geli karaa taliye haa soo gal subax wanaagsan subax la mid ah shax ma wada cabnaa taliye may aniga shaah ma xiisay laakiin kofeygan cabaa marba adiga haddii shaah noo doortayn diyaar ayaan waay sokorta ku soo yaray ilan kabashadaada sokor adhow ii noqon doontee macaan kadibna ma soo geli karaa koob kale ha lagu soo daro sokortana ha lagu soo badiyo gaclisada imaatinkaaga lama filaana iiga dhigtay lama filaan maahan maadaama mar dhowaad guursanaysa waxaan rabay iskaadkaadka gabdhaha kale aad ku haysa inaan ka salgaaro may waxaas ma jiraan koodhe fariiska inta fariiso tartiib gaclisada aniga adiga leen ku hayan ku dheh qof kale ha iigu xisaabinin wariya maxaad taagantay adiga orad shaaha keen soco waayahay xataa waajibkeeda maba godanaysa macaanta ii waranay imaadsinkaaga waxaa wanaagsaneed inaad ii soo sheegto micniga taleefoneed iga soo wacdo ma waxaad iska dhigaysaa qof haddii lasoo waco telefoonka qabanayo waqti walba waabad igu damisaayey ha ii qabanaya baryahan dambe shaqadii iska badanno soo moogid mar dhow guurkeenna in uu dhici rabo waxaa loo baahanya inaad taxadirto shaqadan aad iska yarayso waad iiga saxan tahay wayna ficnaaleed aabbaa arrimaha guurka inaan kala hadlo laakiin waxaa ka sii fiican meeshan inaad ugu yeerto si uu arko saliyaha adiga ku guursaro xidigaha garbiisa ku safanno beel waaye dhowaan waxaa la filayaa doorashooyin dalkan iyo deegaamada ku xeeranba inay ka dhacaan haddaba waxaa jirta tuulooyinka qaar qalalaasa ilaa haatan uu ka taagan yahay foorsabuur ayaa kow ka ah sababta keentay qalalaasahan maalmahanba ka taagan tuuladaasina waxaa sabab u ah baktaabuur iyo wiilkiisa oo lagu magacaabo raanaa warkan waa war sugan aniga ayaana soo xaqiijiyey caddayntana aniga ayaa gacanta ku haya oo idinla wadaagi doona
وريا ودان nin weynaad tahay waraa lagu dirsanaa gelimiya sac waryaa wariga xishooda war sacan ku dhaafsaad keenay weyninkaaga ma naqaanay nin weyn ah waa lagu hoogay saco rakesh kumar ayaa warbixin ka diyaarinaysaa soo maahay anaa ku baraya qaabka warbixinta loo sameeyo haddaana ku bari doonaa yaa ibnu kelba waaxid wasaq yaa usiidaa walaalkay maxaad ka rabtaa gacanta kaa gooday wix haddana wix iga kaxayna cishan soo bax adiga shaqadaada aniga ayaa si fiican u galaya maanta nakeen walaalkay intee wadaan walaal ha iga tegin wariyaa ka foga maxaa kartiin walaal ha iga tegin walaal wiilkayga guurkaaga qaabkee jeceshahay inuu u dhacana adeer aniga iyo gabadhaada guurkeeda waxa waaye adiga go'aanka gaari kara marka arrinkaas anaga waxanugu sii dayn waa hagaag waana arrin fiican waxaan kaa rabaa guurka kadib adiga muhalii ma aadaysaan oo xagga beddel muu doonanaysaa may meeshaanaan ku haystaa sababtu maxay tahayna sababta wax kalmaan nadiifina layga baahan yaano nadiifin aa ku fahmay ilan aniga run ahaantii shaqadan ciidannimo uma aanan dooran mukeef inaan dhex fadhiisto waxaan u doortay shacabka dhibaataysan garab inaan siiyo inaad u adeegtid waad mahadsantahay wiilkayga taliya waxaan rabaa inaan kula hadlo walaalkay raana ayaa watay wuxuuna rabaa inuu dilo waan ku baryaa in haddii badbaadisa ayaan kuugu imaado dacaw haddii aad qabto orod saldhiga tag taliya kama gaaro qof kale hadalkayga dhegaysanayana malan adigoo keliya ayaa hadalkayga dhegaysanaya waan ku baryaa garab isi maanta waa maalin waan laysku baahan doonaa waa aniga ku dhahay orod saldhigaad iga wada taliya samayna sidaan waan ku baryaa walaalkay iyo badbaadi deef sargaal ciidan ayaa tahay shaqadaadana waad ku jirtaa dembi ayaa meesha ka dhacay inaad wax ka qabato ayaa la rabaa soco marka walaal raana wax yar igraan noqda adeer dadkaan aqoon uma liid adiga sabab la'aan ayay isaga doodayaan marka shaahida waa inaad iska cabtaa ka siiso arrimahoodoo dhan shaacbo warkiisa ha joogo kowdhe horta nin daacada ayaan ku weysa dalkiisana waa adeegaya laakiin wax kastoo ataa hadda waa ii muuqataa daacadnimana kaama soo dhowo kowdhe hawshaada waa iska qabsan kartaa aad iyo aadna waad u mahadsantaha gabadheedii bannaanka ayaan kugu sugaaya bannaankayga daba imow sodogee maxaa ku dhac go'aanoo iska qaatay iga aamus deef adiga deefka hore mahad waad isbeddeshay lacagtaana runaantii way ku lumisay hadda ka hor soo adiga ma weydiin aabbahay tuutaha gurigeena surnaacidda iska leh qof kale mayna waxaa lahaa walaalkay wuxuuna ku dhintay kashmiir wuxuuna ahaa waddani daacada dalkiisa asigoo difaacaya ayuuna dhintay balse adiga waxaa tahay khiyaanoolo noocaagaana faamiligeena inuu la xidhiidha ma astaahilo kiiraad
गईयां सब सांझा प्यार दियां अज मुक गईयां कि खटिया 10 लाके कि खटिया 10 लाके दिल दी धड़कन कहंदी ए गलती अखियां दी भुगतनी दिल नूं पैंदी ए गलती अखियां दी भुगतनी दिल नूं पैंदी भुगतनी दिल नूं पैंदी सुपने टुटदे वेख के चावानू खुद हत्थी मैं सुटदे वेख के अखां विचों हंझुआं दी नदी जई वैंदी ए गलती अखियां दी भुगतनी सकना बस रहा हुण मेरे दिल देना चंगा हुंदा जे कर यारा अपा मिल देना आवाज तेरी मेरे कन्ना च आवाज तेरी मेरे कन्ना च हर पल रहंदी ए गलती अखियां दी भुगतनी दिल नूं पैंदी ए गलती अखियां दी भुगतनी दिल नूं पैंदी ए गलती अखियां दी भुगतनी दिल नूं पैंदी भुगतनी दिल नूं पैंदी halo walaal shaqada joogta Soomaa gaari Mercedes ayaa bundada mooga yaalo taariikhdiisuna waa 13 waxaana saaran lacag gaaraysa 200 milyan waxaana loo baahan yahay si wanaagsan inaad ku soo badbaadisid waa walaal Amar Singh atli gaariga noo istaa diyaar way halo waa ku maqlaa hay askari sidaan filay lacagta waa soo qaad Soomaa ha waxa laga rabaa hawlkan in ay qabatid guriga wasiirka aad aadaysaa gabar ayaad iiga soo kaxaynaysaa hawshaas oo kaliya ayaad qabanayad raana mid ay loobin aniga si walba la shaqadan u ah shaqada qaar marnaba inaanan qabanin qof kale oo u dirstaa exactly lacagta dawladda ay ku siisay tan aniga aan ku siiyay 10 jibaar tan aniga aan ku siiyay ayaa badan midaasna hilmaamin adiga la soco shaqo waa shaqo waxaana laga rabaa inaad qabato shaqo waa shaqo ku leeyahay iska sabaran ku dheelaa yani shaqadan adaa soo gashay anna kaaga horey waan ku baraa ku dhahay سوق الفديسة حسل كوغل خرتب أو بارعده شاكن كو شاكن بتقدر توسودي
baawarkan waa fadhiisay ad waxaa lagaa rabaa inaad beedka geysid ad waxaan ma soo baranin anna hortaa soo barte waana kaa tagayaan ku dhahay maxaa sidaan u samaynaysaa taliya darta ayay wax walba u dhacayaan qaladka maalintaas aad gashi ayaan dhibaatadan u marayaa walaalkeena uu sariir u saaranya nolosheedana qaabdare ee u noqotay maalintaas baryadeeda haddaa dhegaysalada beelay ahaan lahayd waxaan dhan waxaan u samaynayaa qalinka walaalkay in lagu guulaysto hadda iska ilow ilaan wax isbeddela kaama arko laakiin waxalu dib waan u sixi karaa iga jooji maalaa yacniga taliya waan ku baryaa halkan maymaan khudbadaada inaan dhegaysto walaalkeen noloshiisa inaan badbaadiya ayaan u baahanahay adigana waajibaadka ku saaran waa inaad gudataa taliyahaaga la hadal wuxuu ku farana samee meeshaan waxaa u sii joognaaba qalada waxaa laga yaabaa waqtigan inayna sugayaan taliyaan rabaa inaan la hadlo taliya raana ayaa walaalkay kaxaystay wuuna dil raba waan ku baryaa iyo badbaadi taliya qofaan adiga aan hadalkayga dhegaysanaya malahan walaalkay garabiisii waan ku baryaa taliya wax walba adiga darta ayay u dhacayaan niyo nin fiican baan ku malinaya oo dadkiisa u shaqaynaya laakiin khaayin waddan baad walaalkay wadani ayuu ahaa dalkiisa isagoo difaacaya ayuu dhintay adigana qof xun ayaa ta oo weliba khiyaanola familkeena inaad la xididana uma qalantid taliya qofaan adigeena hadalkayga dhegaysanaya mala raana walaalkay inuu dilo ayuu rabo waan ku baryaa garabisi walaalkay ii badbaadi taliya يا عسكري قدام ما حد وصل شيء شيء jooji baabuurka sabab maxaa kugu dhacay jooji baabuurka waxaan ku dhahay gaariga jooji
maxaad la oynaysaa soo lama socdo meesha inaan kaa soo badbaadiyey maxaa kugu dhacay marka soo bax sidaas darteed ayaan u ilmeynaya maxaad ii soo badbaadisay walaalkay berita operation ayaa lagu sameynayaa waxaana liga rabaa 200 kun in aan geeyo mana haysto halka jaanis oo aan haystay ayaa taneed adigaan iga khasaari hadda walaalkay siduu ku badbaadaya hadda walaalkay ma dhimanayaane ma dhacaysa taas aniga badbaadsanaa walaalkay may dhegayso marka hore iga dhimana walaalkay waa inaan badbaadiya aniga ma qaadan karo walaalkay inuu dhinto operationka lacagtiisa inaan keeno waa ku qasbanaa waan ku baryaa iskeeda laakiin marka hore dhegayso walaalkay aan soo badbaadsanaya maxaad ii maqlaada adiga kaligaa ma tiid walaalkaa garabkaada taagan waan la socdaa adiga qalad inaan kaa gal laakiin sidaasoo dhan uma xumid salaabadan qaldan ma loo baan adiga inaad qaaddo walaalkaa lacagta operation lagu sameyn anigaa dhiibaayo bis keliya isdeji adiga waa ku baryaa anigaa ku garab taagan waxna ma kaa halaabayo fanbroch.com fanbroch.com هلو بلرام هديف حقي جوجتاني xafiiska wax kale kuma soo weyn waxaan rabaa arrinta xal dhacday in la xaliyo in kale inaan ku weydiiyo hal raana kuma dhimin ayaan u malaynaa hal mid inaan ii samaysan kaa rabaa adigii gabadha soo socoteen guriga waa inaad tagtiin wax walbana oo keen qanaan taliye subax wanaagsan jagad siin maadiga wanaagsan aadi aadaa raba inaan ku ammaanaya akhe xalli wixii qawati qof qabti malaan ku dhahay nin karti laa tahay waa saxan tahay xoogaan siin waan dareemayaa laakiin waxaa wanaagsaneed bilowga hor si daacadnimo inaan u shaqeeyo wakhtigaas dad badan ayaan badbaadin lahaa mudan adi wax kale ma ku bedelin wax loo ku bedelay dhaawaca ku soo gaari aniga baada ka hor dhaawacaan ku soo gaari amala ii soo gaari wax walbaan samaynayay baas darteeda daacadnimada xataa waa u hilmaamay laakiin dhibkii ii soo gaari maxay kugu taalahe igaarkayga aan jeclaayaan ku waayey wax walbaa dhaco adi waxaan kaaga baahanahay inaa isbeddeshid oo wax walba aad beddeshid meeshii xumaan laga filaayay samaan inaa ka dhigtid wakhtigii rabta ay ahaata waxaan rabaa bulshadaada inaa badbaadisid أو سوق بد سوق أنت وسعد أنت تلي أنا بس دواني كان سودا اسكسيدا أي إيكان أو تلي ما نم بنا اللي ده ما جاي ولا شيء قديوه كي أفضل حماية لنا لهاي أو تلي دعت وحنقعد سها ولا شيء إنه يسوي بالث هدي يسوي بالث بدل حتى يحلا بحب من الانجاز إنكم هذا اللي حل بين أنتوا هاي maxaa sugaysaa in mar walaashahay soo badbaadinayna askari soo dhowow webiga si walboo u socdo ugu dambayntii badda ayuu ku soo dhammaadaa waa maxay doqonkan gabadhina may
lacagtaada dib ayaan kuugu soo celiyey hal shilin kama aanan isticmaalin lacag aniga kuma weydiin ee gabadhi aan ku weydiiyey may aawe gabadhaas meesha loogu talagalay ayay joogtaa halkan waxaan u imaaday ninkan walaashiisa inaan kaa kaxayso yaa waryaa oo hadda qofkaas inaa kaxaysa ay halkan u timid soo maha qofkaan ma kaxaysan kartid aniga ayaad ii shaqaysaa weligiina aniga ayaa ii shaqayn doonta besrana haddii aad isku dayda ergan dib dambe afkaada inaad ugu soo saarto waxaad la socotaa bartaad taagantahay in aan kugu aasiso oo kaal adiga laba maalin haddii aan kula shaqaymo waxay kula noqotay inaad iibsan kartid waxaa igu balana baxsad inaan kuugu dilo ilaan boqoraad isku malaysaa gabadha aad sheegaysid inaan kuu keenaa ku fikirin raana waan isbara doonnaa barashaa ii kaa laaban askari soo uma malaysa xadkaada inaad soo gudbaysid boqor aadaan uga helay walaasha aniga ayaa kuu soo badbaadinaya waa balan ordaadan xaafad iska aad mahadsanid talii ad camal inteed ay artaa hindiyaa noolaato bani indhaha kala fur bani la hadal bani iga raali noqotay toore deeb xaaladiisa ka waran deef xabadihii iminka waynu ka saarnay xaaladdiisuna meel xun bay maraysaa waana uu suuxsan yahay oo muddo ayuu suuxsanaanaya suuxsanaanshahaasna waxaan dhihi karnaa dhaawaca uu soo gaaray darteed ayuu la suuxsan yahay marka idinka waxaa laydinka rabaa inaad u ducaysaan si uu idinku soo caafimaado annaguna takhaatiir baynu waan dadaalaynaa sidii nalo habboonna waynu samaynaynaa meesha kusii suga marka waayahay
agteydana muhiim ayaad ka tahay aniga ayaad ii shaqaysaa weligaana aniga ayaa ii shaqay doontaa shaqaa qabana ayaa dhahay shaqadaas soo qabata ma noocaan baa aad iyo aadaad u mahadsan tahay waanadaadana waan qaatay aabbaha dhimashadiisa aniga ayaa ka dambeeyey aabbaha dhimashadiisa aniga ayaa ka dambeeyey aabbaha dhimashadiisa aniga ayaa ka dambeeyey Dave. orniyo mudana shinde si wanaagsan ii dhegeyso meeshan adiga ayaa u xirsaaran talana farahaaga waa ka baxday adiga waxaa lagaa rabay inaad cabashada badan iska dayso ugu yaraan xitaa caddayn iyo waxyaaba noocaas inaad keentid ayaa loo baahnaa oo ninkan aan ku qaban karna adaa lagaa rabaa dadaalka mudan aniga waan dareemi karaa doorashooyinka dhacaya qaabka ay u dhacayaan laakiin bakhtaawar waa nin xariif ah farsamadiisana ma la fahmi karo ninkaasna waa nin xirfado badan caddaymihii maxkamadda lagu geelaa sida lagu helana way adag tahay booliskii dowladdana asigay garab siinayaan askarigii damcana inuu ka soo horjeestay ninkaas asigoo dhan waa la soo afjarayaa waana loo dhammaynaa hadda ka hor nin ayaa wuxuu isku dayey inuu asiga ka hor imaado laakiin maxaa ku dhacay mataqaanaa ilaa hadda sariir ayuu saaraya waxaana mataraa waa bareelis laakiin adiga waxba ha ka welwelin hal fursadoo haddaan ku helna ninkaas asigoo dhan waa soo afjaraynaa gacantaana ku soo dhigaynaa bakhtaawar dambana ma maqlaysid nasiib wacan ayaan ku dhihi lahaa adigaa mudan xaaladaada sooma fiicna tartiib lugtoo qaad ababaay libaaxi waa kanaa libaaxaye shaxan baa shafka lagaa soo geliyey soo maha waa soo dhaawacantay may tartiib meeshaada fadhi tartiib dhaawac baa tahay anaa soo fadhiisanaya wiilkayga libaaxa duurka ku jiraba ugaarsi ayuu aadaa ugaarsigaas intuu ku jiran dhaawac ayaa soo gaara dhaawacaa soo gaarina ugaarsigu uu waday uma joojiyo adigana aad baan kuugu faraxsanay hawsha aad qabatay waan kuugu faraxsanay xaqiiqdii ya magacaa anigaa soo fiirinaya mal ficna haa waa la fiican yahay boolice stationka ka tirsanahay waxaan rabaa taliyaha inaan la kulmo waayahay soo gal ayba wiilkayga dhaawacan yaroo ku soo gaaray waad ka caafimaadaysaa maalmo kadibna fay ayaad noqonaysaa ya deef ha waan ku salaami taliya magacayga waxaa laala kun darsin waxaan kaaga baahanahay hawshaada si degdeg ah inaad ugu laabato laakiin siduu ku baxa wuuba xanuunsan yahay soddon maalin ayuu ninkan jaanis haystaa soddonkaas maalinna waa huwaa ninkan waa ku caafimaada ilaa ninkan geesi waaye ditoorka wuxuu dhahay 6 bilood nasiinaha qaato ma anfacayo taliyaha inuu jiifto waayo hadduu jiifto taliyi kale ayaa meeshaan loo soo beddelayaa annagana ma doonayno taliyi aan deef ahayn inaan amarkiisa qaadano waayo deef waa nin daacad ah ciidamadana u baahan dabka shidanna asagaa yaqaano sida dambas looga dhigo dulmigana waa ka soo horjeedaa waa saxanta livandarsiin diyaar waxaan shaqadeeda inaan ku soo laabto waan la socda gobolkan geesiyaal fara badan horey inay u soo mareen anigana waxaa rabaa geesiyaasha siday u dagaalmeen oo kale inaan u dagaalmo burucad gacantooda iyagoo ku jiraan ay geesini muujiyeen well done myson arrin wanaagsan ayaa samaysay anigu korneel hore ayaan ahay diyaarna waxaan u ahay nafsadda hanteeda inaan garab ku siiyo don afred habaqin ayaan ku dhilaa gohead diyaar ayaan kuu nahay
aniga ma rabo wiilkayga laaluush inuu shaqo ku helo hadduu middaas sameeyo dadnimadiisa iyo damiirkiisa ayuu iibsanayaa anigana ma rabo middaas inay dhacdo ou noqdo wiil laaluush qaata ninkaas dhiiggiisa ayaa kacay walaalkay ayuuna dilay qalad ayay ku ahayd walaalkay inuu dilo haddiiba uu damacsanaa inuu arguto waxay ku wanaagsan inuu anigayga arguto arguusha adaaba raadinaysay raana maxaa ku cadkoosa weysa asiga shid maxaa sidaan u samaysay aabbaha ninka dila nin kale maan ee waa aniga haddii nin geesii aad tahay inta soo baxda maxaad anigii dili weysa ee walaalkay maxaad ka doontay walaalkay ayuu dilo soo maahan kaali mohali gaashaanlaha adiga ayaa ku dili soo maaha nin geesi ayaan kuu malaynaya laakiin fule ayaad tahay haddii geesi aad tahay bannaan cad ayaad ku dili lahayd ninkaas waxaa fiicneed halkaan inaad keentid oo aabbihiis hortiisa aad ku xildhibaane waad cabsanaysaa soo mahay haddiiba xildhibaan aad tahay ma loo baahno inaad cabsato haddii kale waa guuldaraysanaysaa haddaanba guuldaraystay bee sideen ku guulaystaa aniga waxaanna waad samaysay horay ayaan 7 gaashaan u soo dilnay mid kale ayaad noogu sii daraysaa intaad duntu waa carari kartaa ballan waxaa ogaa inaan kula xisaabtamo run ahaantii askartiina maanta geesnimo ayaad muujiseen oo garab waxaad igu siiseen raana inaan weeraro kadibna musuq maasuqa oo waday aan ka hor istaago hoosh intaanoo keliya kuma eko hadda ayay bilow tahay marka idinka waa inaad dadaashaan weliba aad muujisaan kartidii geesnimada hadda aad muujiseen mid la mid ah waa inaan baabinaa burcadda diyaar ma tihiin diyaar ma tihiin عامر سين ديار متى؟ هات لي warkan maanta waxaan idinka soo tabinaynaa tuulada lagu magacaabo duulabaati muddo 5 sana doorasho xalaala kama aysan dhicin waa markii ugu horeysay ee shacabka tuuladan ay u dareeraan inay doortaan shakhsiga iyaga ay rabaan iyagoona cabsanaynin oo si farxad ku jirta u dooranaya sababtaasna wax kale maahan waxa suurto geliya askari daacad noqday kadib muddo badan oo uu tuugada la shaqeynayay daacadnimada uu muujiyay waxa daliil u ah tuugadii
musuq maasuqa iyo dhaca iyo boobka ka waday tuuladan ayuu gacanta ku dhigay shacabkana waa uu badbaadiyey dhammaantoodna waxa uu ku guray jeelka mukhaadaraadka tuulada lagu samaynayana waa uu soo afjaray askariga suurtogeliya arrintaasi magaciisa waxaa la yidhaahdaa DCB Dave abaalmarin laysa siiyo midda ugu qiimaha badan ayaa maanta gacanta ku haya aniga keligay xaq uma lihi ee xaqan waxaa ila leh ragga hooshii la qabtay iyagoo waajibaadkooda gudanaan geeriyoodeen booliska banjaab waa booliska ugu geysan ciidamada hindiya waad la socotaan gobolka batsangoog weeraradii ka dhacay ciidamadan ayaa kowka guulna iyagaa ka soo hoyey iyaga haddaysan aalay anaga guul maana arkeen anigana waxaan ku faraxsanahay maadaama booliska bunjaab aan ka mid ah Mogadishu